xildhibaan xaadoole ayaa meeg toosa waxa u qaatay xildhibaan calanug balse calanug ayaa kasoo jawaabay wuxuu yidhi xaadoole asiga ah langaab weliba sheegata ah xaadoole ayaan ka sugaynaa hadalkaas inuu kasoo jawaabo si lamid ah ra-iisul wasaarihii hore ee Rooble ee la shaqeynaya madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in macallin Mahdi markuu u jeeday kooxda mucaaradka oo dhunta gas oo carab ayadana muuqaalka ayaan ku qaadaa dhigi doonaa madaxweynihii hore Soomaaliya Mudane Shariif Axmed ayaa asagana yiri who is macallin Mahdi Allah ma aqaanib waa ninka shalay shaqeey jiray oo inkiray madaxweynaha Soomaaliya dalka waa ku maqan yahay wuxuuna ku maqan yahay ka qaybgalka shirka qaramada madoob ee ka dhacaya dalka Mareykanka balse waxa ku sima ah gudoomiyaha baarlamaanka Sheekh Aadan Madoobe oo ah ku simaha madaxweynaha inta madaxweynuhu maqan yahay xaaladda Soomaaliyana aad ay u aloosan tahay siyaasaddu aalaaba sanadka ugu dambaysa madaxay isla gashaa qodobadaas ayaa ku qaadaa dhigi doona anigoo suudi ay idin tabinayo barnaamijka qaysna waa kaamiramanka soo dhawaada saaxiibaya ku bilaabay nabadoon abaabul aad uga barateen hadda ka horan iyo rukub dhahnaan ku leeyahay haddana waa soconnaa anoo soo raacana malihin ayaa shalay ku ruqaansaday xibnaha mucaaradka iyo odagii Siinay lagu garaacay bal muxuu ka yiri marka hore isla daawan waxaan rabaa odan lagu soo rida beena ee la yiri ka tarabiila qaaday anaan meel ka dhaawacnayn la mayeeriyo alwaax oo musmaar ka taagan tahay nin lagu qaaday ee aan dhaawacnayn ee samata bixintii la siisidaan arkay duqa manuu dhaawacaya isbitaal oo gali lahay ee samata bixintii aadi ma lahayn saakan hal geel oo waa la igu xawaalay oo soo gatay Siinayna shimiteer kuma yaal marka waxaan rabaa gudoomiye waxaad qabateen waa fiicantaa laakiin xaniiyasiiba idin dhiman amniga naxariis laguma hay karo iyo nin hebel waa fiican yahay nabadoon abaabul ayuu ahaay oo sheegay in odagii ka soo muuqday golaha samata bixinta ama kooxda mucaaradka ee sheegay in forliif hoos laga geliyay jiingad musbaar ka taagan yihiin lagu qaaday aysan macquul ahayn inuu haddana isla markii golihii ka soo muuqdo jasiiro uu ka qodbeeyay si lamida maalinta ku xigta wuxuu leeyahay xabad geelo soo gatay barxadda Siinay oo keensaday barxadda Siinay wuxuu leeyahay nabadoon abaabul shimiteer ama qabuur ma ku yaal muxuu geela kala soo jirshay marka asoo la hadlayo gudoomiyaha gobolka Banaadir Mungaab ayaa wuxuu yiri gudoomiye nabadda laguma helo yiri maskiinimo ee dadka xaniyaha ka badooji xildhibaan calanug ayaa ka jawaabay meegi oo u qaatay xildhibaan xaadoole wuxuuna sheegay langaabnimadiisa inuu qanacsan yahay laakiin xaadoole uu yahay asiga laftirkiisu sheegato balaan sida wana muuqaalka calanug xaadoole oo xalay feerkeyga iyo magacayga ba sheegay langaab haday yihiin langaabnimadoodan ku qanacsanahay laakiin nin sheegad ah anigu ma yihiin garjinto